dabkan ka kacay degmada Madiine ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu saameeyay hanti fara badan balse ma geysan wax khasaare nafeed ah hase ahaatee waa bakhaar lagu iibiyo qalabka dhismaha laakiin way gubteen wixii halkaas yaalay sida idin muuqata wali waxaad arkaysaan meelo gubanaya oo la daminayo dadkan meesha jooga waa dadka ay kaga gubatay hantidii ay lahaayeen Muxyidiin Axmed waxa uu kamid yahay odayaasha ay kaga gubatay hantidu waxa uu u sheegay TV-ga Star dabku goorta uu dhacay iyo khasaaraha uu geystay marka ilaahay waa maadis ilaahay baa keenay saate dhanka kale Maxamed Aadan Cumar waxa uu Star TV uga waramay sida loo damiyay iyo cidda ka qayb qaadatay isagoo oo dhanka kale tilmaamay in aan la qiyaasi karin hantida ku baaba'day meesha وإلهي شيء الحمد لله وسوق الضنا كل ضنا كبابا لكن واحد القوت أنا تشيء قرب وانقرت أدري ما واحد كم تاي دتي جناح ستة الناس عشرة كلها الحمد لله سوق إنك أنتم كل بريء يسوليو لا أسلق وحيو حتى بابا لكن الحمد لله إلهي محدث ونفط إلهي ونفط وانقرت دبك الدمسيسة معمول كدملا يدمسيلو غيب وين ما كقاته الحمد لله غيب وين ما كقاته على المعمول على الدملا الحمد لله وانقرت بل هنشيدا ماشى كبر برتي خسارة لما حاول كمان خسارة لما كوبك إلهي باكوبك markii hore dabku muxuu ka dhashay wallahi kulay koronto leh malayn dabkan taas wax kale ka sheegay balse dabkan ayaa la sheegayaa inuu markii hore ka dhashay koronto Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV magaalada Muqdisho